suldaan oo halkaasi inooga soo warama munaasabadan lagu dhagax dhigayay jaamacadda dawladda Puntland xarunteeda Gaalkacyo oo ay ka soo qayb galeen Islaan Bashiir Islaan Cabdulle mas'uuliyiinta maamulka gobolka saraakiisha ciidamada aqoon-yahan culimaa u diin iyo xubno ka socday qaybaha kala duwan ee ururada bulshada ayaa maanta ka dhacday xaruntan laga dhisayo jaamacadda qaybteeda Gaalkacyo Sheekh Bashiir Sheekh Xasan ayaa markii ugu horeysay goobtaasi ka hadlay waxaana hadaladiisi kamid ahaa sharaf waxaan in maartay ka soo qayb galay maartay Islaan Bashiir iyo goboltooraha iyo duqa degmada iyo waxgaradka xuqaashi Gaalkacyo jaamacadu waxa weeye waa asaaska waxbarashada weeyaan intaas oo dugsi dhaxa hoosa ee macsara inoo soo baxaysa maalin walba iyo sanad walba meel aadaan ma laha ardadii shaqa ma jirto jaamacad kale ma aadi karaan marka maxay qabanayaan waa inay markaa budhacad ku noqdaan marka intaas markaad fiiriso iskoolada iskoolka waa badan yihiin laakiin waxaan ka dhimanay waa jaamacadii weeye Gaalkacyo nasiib waxay u lahayd taariikh ahaan inay noqoto Soomaaliya oo dhan xuduntii waxbarashada ahayd waa macruuf weeye ardada ka soo baxay waxay ardadii ugu fiicnaa Soomaaliya oo dhan macruuf iyadoo ahayd waxa xusun mudan haddaan xitaa ka soo qaadano Umar Samatar iskoolka ah dadkii ka baxay maartay sanadkii u dambeeyay Puntland oo dhan 36 ahaayeen qof yaa keenay lambarka keenay Umar Samatar kaliya wuxuu keenay 26 Puntland intay ka toonbay keentay waa sharaf Gaalkacyo soo heeytay weeye oo lagu faano weeye runtii ardada caynka maskaxeedu tahay in loo jiheeyo meeshii ay tacliintooda sare ka helaayeen waa shay waajib inagu oo inteen mas'uuliyiinta maanta xil laga saaran yahay gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali oo galeen sidii loo heli lahaa dhul laga dhiso dhismaha jaamacadda ereya kooban goobta ka soo jeediyay waxaana uu sheegay in dadaal xoogan ay u galeen sidii loo heli lahaa dhul laga dhiso dhismaha jaamacadda kaasi oo in badan oo kamid ah dadka ku dhaqan gobolka ay ka faa'iideystaan dadkan iga soo horjeeda waa mas'uuliyiintii dhaqanka u sareysay iyo aqoon-yahanadii iyo mas'uuliyiintii gobolkan madaxda ka ahayd iyo dhammaan bulshada madaxdeedii waxa weeyaan waxa hadeerna laga rabaa oo la doonaya halkan in laga sameeyo dhul weyn loo doonaya maxaan ku raahday library iyo dhowr qaybood oo kale oo bulshada waxtar u leh in halkan laga sameeyo library-na magaalada dhexdeeda loo rabaa waxaana weeyaan dhulka waa jiraa dhulkii dawladda dhulkii ku habboonaa wuu jiraa dadkeenna haysta marka hore waxaan leenahay oo saxaafadda u marinaynaa mas'uuliyiinta kala duwanna aan u sheegaynaa maxaan ku raahday dadka ku jira inay banneeyaan meesha aan u calaamadin doono oo hadeerna dadka qaar aan ku wargelinay gudoomiyihii degmada duqi magaalada waa joogaa oo dhulka u qaabilsan gobolkan iyo mas'uuliyadda degmada anigu goboltoor ahaan oo markhaatiyeysanayo maxaan ku rahaa dhaqanka Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo dhaqanka u sareeyay iyo odayaashii iyo aqoon-yahanadii waa qodobka waxaan saa u leeyahay dadkii baa dhulkii laga fujin kari waayay raalli baad ahaanaysaan waxaan leenahay dadku dhulka ha baneeyeen si loogu qabto bulshada wax intaasna halkaas ayaan kaga faa'iideysanayaa Islaan Bashiir Islaan Cabdulle oo gabagabadii halkaasi lagu soo dhaweeyay ayaa uga mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay sidii lagu soo heli lahaa ama dadaal weyn u gashay suurtagelinta iyo hirgelinta xaruntan cusub ee jaamacadda isagoo ugu baaqayna dhammaan dadka ku dhaqan gobolka in si wada jir ah uga qayb qaataan dhameystirka jaamacadda oo maanta la dhagax dhigay taasi oo si ku meel gaar ah hadda ugu shaqeysa dhismo uu shakhsi si gaar ah u leeyahay culimada iyo waxgaradka iyo nabadoonnada ka soo qayb galay xafladan aynu maanta isugu nimid inaynu ku dhagax dhigno jaamacad cusub ilaahay waa mahad leh waxaan kaloo mahad u soo gudbinaynaa jaamacaddan oo muddo dheer hawsheeda lagu jiray howlwadeennadii iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb qaatay oo Sheekh Bashiir iyo Professor Maxamed Jaamac Salaad iyo Xuseen Guure ay hormoodu ahaayeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin safarro badan iyo dadaal badan bay arrintan u galeen
guusheedii ugu horraysayna waataynu hadda u wada taagannahay oo aynu isugu nimid waxaa marka ina saaran maantay haddii aynu nahay shacabka Puntland iyo dadweynaha iyo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta khaasatan dadweynaha gobolka Mudug noocyadiisa kala duwan jaamacaddan aynu dhagax dhignay saakay oo sida ka warqaba aan loo hayn dhaqaale ku filan ee ay tahay bilowgaasna ay bixiyeen inta badan jaaliyada dibadda oo aanu aad ugu mahadcelinayno inta ka dhiman inaynu dhamaystirano waxa loo aasaasay waa waxbarashaduna waa waxa ugu qaalisan oo wax lagu bixiyo ama dhaqaalaha ahaato ama aqoon ha ahaato arrintaas dadaal weyn oo aan kala har lahayn baan ugu baaqayaa reer Mudug inay uga qayb qaataan hadee waxaan rajaynaynaa ilaahayna ka baryayaa jaamacaddan inay noqoto jaamacad lagu barto cilmigeedana uu dalka iyo dadkaba anfaco. cali maxamed cali ETN TV gaalkacyo. kulan dhaxmaray maamulka gobolka hay'adaha iyo NGO-yada caalamiga ee ka howlgala gobolka Bari ayaa ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi Bari sida warbixintan uu inoogu soo diray